Assalaamu calaykum kusoo dhawaada qaybta lixaad oo barashada Dart iyo Flutter. Marka haddii aad fiidiyowga ku cusub tahay waxaan ka hadlaynay qaybihii hore waxaan ka hadlaynay Flutter ayaan ka hadlaynay maaragtay basic widgets aad u isticmaali kartid sida maaragtay row widget, column widget iyo container widget iyo scaffold iyo other widgets. Marka waxaan sameynay calculator UI ayaan dhisnay laakiin codekii ayaa fara batay marka waxaan rabnaa codekaas inaan naaqusno oo improve ku sameyno. Marka intaan improve ku sameynin waa inaan baranaa Dart marka hore saan hodhowdii ugu soo laabano programka qornay aad improvement ku sameyno. Marka qaybtan waxaan ka hadlaynaa insha Allah waxaad baranaysaa variable-ka oo Dart iyo data type-ku leeyahay. Kabacdi markaan ka hadalno data type iyo variable-ka markaan ka hadalno waxaan ka hadlaynaa xilliga isticmaalashid final iyo constant iyo for keyword iyo dynamic keyword. Markaas kabacdi videogan markuu dhamaado kabacdi next video waxaan kasii hadlaynaa another topics saan maaragtay ugu soo laabano programka sameynay. Marka let's get started. Intaanan ka hadlin variable marka hore waxaa ku bilaabanaa data type-ka uu leeyahay Dart uu la yimaado. Marka dhibacda koowaad waxa weeye numbers waxa weeye maaragtay wuxuu leeyahay integer data type oo integerkan waxa weeye maaragtay macnaheeda whole number dhammaystiran. For example 10 20 30 numberadan waa numbero dhammaystiran marka integer data type weeye. Another data type uu leeyahay waxa weeye double waxa weeye maaragtay number aan dhammaystirnayn. For example number oo ah maaragtay decimal ama fraction sida maaragtay for example haddii aan dhahno 10.5 20.5 30.5 so on and so forth. Numberadan waxa weeye numbero aanan dhammaystirnayn weeye. Marka numbers labada data type ayuu leeyahay integer iyo double. Another data type uu leeyahay waxa weeye string macnaheeda waxa weeye maaragtay sequence of characters waa numbero waa maaragtay magacyo ama xarafo ayuu leeyahay sida characters camal. For example haddii aad rabto inaad userka informationkiisa haddaad rabto inaad heshid waxaad maaragtay isticmaali kartaa. For example haddaad rabto magaca userka inaad heshid waxaad isticmaalaysaa string oo maaragtay oo magaciisa uga heshid. Another data type haddii aad rabto inaad heshid maaragtay addresska userka meeshuu degan yahay camal waxaad isticmaali kartaa string. For example meeshuu maaragtay haddii aad rabto userka locationkiisa waxaas marka string ayaad u isticmaalaysaa. String marka wuxuu leeyahay double quotation ama maaragtay single quotation labadaba waa u isticmaali kartaa. Boolean ama bool waxa weeye maaragtay true false. Marka true false macnaheeda waxa weeye sax ama khalad. For example haddii aad su'aal weydiisid computerka su'aashaas waxay noqon kartaa true su'aal shaxsan ama maaragtay false su'aal khaldan. Another data type uu leeyahay waxa weeye list waxa weeye list of collection of objects. Marka meel ayaad isku keenaysaa maaragtay data badan ayaa meel isku keenaysaa. For example haddii aad dhahno for num ayaa dhahaynaa. For example numberkan wuxuu leeyahay 1 2 3 4 right. Numberkan waxa weeye list of integer weeye. Waa marka waa list of integer waana same data type. Marka integerkan waa isku wada mid. Haddii aad rabto inaad isticmaashid waxaad isticmaalaynaa magacan ayaan isticmaalaynaa numkaas wuxuu hayaa informationkooda wuxuu hayaa maaragtay list of integer. Another list type wuxuu noqon kartaa for example list camal ayaa dhahaynaa. Listigan wuxuu leeyahay integer. For example maaragtay magaca right wuxuu leeyahay maaragtay double high wuxuu leeyahay maaragtay age. Marka kan waxa weeye list of object way kala duwan yihiin. Inta waxaan haysanaa string ayaan haysanaa data type. Inta waxaan haysanaa integer data type. Inta waxaan haysanaa integer intana waxaan haysanaa double. Marka data type-kan way kala duwan yihiin laakiin hal meel ayaad ku wada haynaysaa. Kan waxaa isticmaalaysaa list marka kan waxa weeye list of objects weeye. Marka
waxaa kasii hadlaynaa hadda waxa weeye maaragtay maps waxa weeye maaragtay key value pair marka fura ayaad haysataa. furahan waxaad haddii aad furahan wuxuu la yimaadaa value. marka haddaad rabto value inaad isticmaashid waa inaad taqaanaa furahan, waa inaad taqaanaa. for example haddii aan haysano maaragtay map object, for example name, furaha wuxuu leeyahay for example string mode, right? kabacdi another key ayuu leeyahay age, for example 24. another key value ayuu leeyahay oo for example maaragtay height, dherarka, kabacdi 1.84. horoti marka furahan value, marka kuwan meeshan waa furayaasha, kuwan value wey. marka haddii aan maaragtay ogaano furaha siinaynaa name, waxaan rabnaa inaan ogaano valuegiisa. horoti wuxuuna siinayaa magac mo, right? another example haddii aan rabno maaragtay haddii aan furaha ognahay aan siino furaha waxa weeye age, for example waxaan rabnaa inaan ogaano valuegiisa. kabacdi wuxuu na siinayaa ama nagu jawaabayaa magaca ageka intuu jiro qof. marka kan maps ayaa la dhahaa, laakiin hadda kan waxaa ka hadli doonaa insha allah mustaqbalka videoyasha soo socda. marka hadda waxaa xoogta saarta inaad fahantid kuwan bis. marka data typekana uu leeyahay waa intaan. kabacdi hadda waxaa kasii hadlaynaa variableka. okay, waxaad sameynaynaa googleka ayaad waxaa qoraysaa dartpad ayaad qoraysaa. dartpad markaa qortay linka koowaad ayaad ku dhufanaysaa. kabacdi meeshan waa meel aad maaragtay programka ku qori kartid oo uma baahna inaad wax soo xawilatid, waxaa uma baahnin. marka waxaad ku bilaabeynaa hello world. kabacdi markaa programka aad markaa qortay inta ayaa run dhehaysaa. kabacdi outputka uu kuu soo dirayaa. marka maanta waxaan bilaabeynaa waxaad ku bilaabeynaa variableka ayaan ku bilaabeynaa. marka variableka waxa weeye maaragtay meel aad maaragtay informationka ama valuega meel aad maaragtay ku hayn kartid saad maaragtay programka xilliga rabtid saad maaragtay ugu wici lahayd aad u isticmaali lahayd variablekaas. marka variableka rule ayay leedahay. ruleka waxa weeye maaragtay inay maaragtay ruleka koowaad waxa weeye identifierka inuusan ku bilaawan. marka haddii aan dhahno for example haddii aan dhahno int equals 10, marka integer waxa weeye identifier weeye. marka ma dhihi karno inaa maaragtay saas khalad weeye, so saas uma wici kartid. marka identifierka ma isticmaali kartid oo maaragtay marka kaas khalad weeye. pointi labaad waxa weeye maaragtay alphabet can contain alphabet and numeric. kan sax weeye. marka for example waxaa dhihi kartaa for number 2 for example equals 2. kan waa sax, variableka sax weeye. marka alphabet iyo ama numeric value waa isticmaali kartaa, numberna waa ku dhex. laakiin maaragtay qaladka waxa weeye haddii aad maaragtay dhahdo for example number 4 names cannot begin with the number. so haddii aad dhahdo for 2 num equals 2, marka kan qalad weeye, waayo variableka number kuma bilaaban karto, right? and also qodobka saddexaad waxa weeye variable cannot contain space and any special characters. kan micnaheedu waxa weeye variableka kuma bilaaban karo for example hashtag amal dart is awesome. saas maaragtay kuma bilaaban karo saas, waayo hashtag kuma bilaaban karo, kuma bilaaban karo at, kuma bilaaban karo anything maaragtay oo special character khalad weeye. marka ma isticmaali kartid. okay, marka ruleka waa dul marnay. marka hadda waxaan rabnaa inaan example sameyno. marka haddii aan dhahno int num 2 kan waxa weeye ruleka sax weeye. marka waxaa sameynay integer
oo variable oo num2 ayaan sameynay oo integer ah. waxaad samayn kartaa string name is no, for example kan waa string name waaye waa saxsannahay. Also waxaan dhihi karnaa string last name is marka kan sax weeye. Also dollar sar wuu ka bilaaban karaa variableka waa okay weeye. Another thing is variableka wuu ka bilaaban karaa for example double height is kan waa sax. Also waxaa dhihi karnaa haddii aan underscore haddaad sameyno kan underscorekaas waa variableka wuxuu noqonayaa private. marka private variableka waxa weeye haddaad isticmaalaysid classka ama meesha u isticmaalaysid bas ayuu maaragtay available yahay. laakiin another file haddaad rabta inaad uga wacdid variablekan private ayuu noqonayaa. marka maaragtay waxaad ka heli kartaa bes meesha programka aad uga wacaysid bes ayaa available yahay. laakiin another file ama another object ama another class haddaad uga wacdid ma shaqeynayo. marka underscore wax underscore haddii uu aragsan yahay aragtid waa private variable waa badanaa kuwan waxaad isticmaali kartaa markii aad classes ama objects aad isticmaalaysid. marka kuwan marka waxaa la dhahaa kan waxa weye explicit declaration weye. explicit declaration weye waayo waxaad u sheegaysaa maaragtay waxaad u sheegaysaa integerka inuu yahay type. marka variable typeka waa integer, variablekan typeka waa string, variablekan typeka waa string, variablekan type waa double. marka explicit ayaan isticmaalin waayo dort waxaan dhehnaa dort variablekan typekeeda waa kaas. marka saas wey. marka waa u sheeganaa typeku yahay. laakiin dort also wuxuu leeyahay maaragtay implicit declaration oo maaragtay uma baahnid inaad maaragtay u sheegtid typeka. waxaad bes aad dhehaysaa for example haddii aad dhahno for x is 1.9 marka kan waa implicit declaration. marka dort wuu ogaanayaa wuxuu yahay variablekan because waxaan dhahnay sababta waxa weeye waxaan assign dhahnay double value ayaa u dhiibnay. markaas dort ayuu saas ku ogaanay. marka haddaad ku dhufano variableka wuu kuu sheegayaa inay tahay double waayo assignmentiga dhinaca assignmentiga waxaad gelinay inuu yahay double. marka for example haddii aad dhahno for y is 90 marka kanna wuxuu sheegayaa waayo number whole number remember haddaa xasuusatay waxaan dhahnay integer waxa weeye number buuxa. marka saas markaa dhahnay wuxuu sheegayaa inuu integer yahay. marka haddii aad for keyword haddaad isticmaalaysid waa inaad maaragtay initialize waa inaad dhahdaa for example waa inaad dhahdaa for num is 0. marka haddii aa initialize empty value haddaa initialize dhahdid kan wuxuu ogaanay okay 0 waa number buuxa marka wuxuu dhahayaa integer way. haddii aad rabta inaad isticmaashid for example namekan waxaa dhahaynaa empty string hodhooti waa isticmaali kartaa namekaas oo waxaa dhehaysaa okay hodhooti markaan isticmaalno namekan waa si waxaysanaya. marka haddaa rabta inaad for isticmaashid waa inaad maaragtay empty value ku waxaysaa. another example last example aan ku siinayo waxa weye haddii aad dhahno maaragtay weight variable hodhooti waxaa dhahaynaa 0.0 marka kan waxa weeye number oo maaragtay dhibicsa raacsan tahay. marka haddii aad fiirino weightka wuxuu noo sheegayaa waa double. marka for keywordka waad isticmaali kartaa laakiin waa inaad maaragtay empty value waa inaad maaragtay initialize ku dhahdaa saad hodhooti u isticmaali lahayd. marka another variable kuwan waxaa dhahnay waxa weeye implicit right. marka kuwan waa implicit declaration. marka explicit declaration waxaa haysnaa also bool is alive kan waxa waaye true. marka kan waxa weeye boolean data type weeye. marka kan waxa waaye true and false right. sidoo kale waa dhihi karnaa implicit declaration waxaa dhahaynaa bool is winter false
right? Marka waa dhihi karnaa variableka waan isticmaali karnaa laakiin waa inaad maaragtay waxun leh waa inaad initialize ku dhahdaa haddii hadda false aan dhahnay marka dart wuxuu dhahay okay variablekan waa false markaas wuxuu dhahay okay tan waxa weeye boolean bool saas ayuu sameynaya okay kaas I hope waa inaad fahantaa u malaynaya waxaan ka hadlaynaa hadda final iyo constant marka haddii aan maaragtay dhahno constant num let's say favorite number is 7 waa inaad ka dhignaa for example integer kan waxa waa integer right laakiin uma baahna inaa haddii aad saan ka dhigtid kanna waa okay weeye oo wuxuu noqonayaa implicit marka codekan wuxuu noqon karaa implicit declaration haddii aad maaragtay data typekaana u sheegin right laakiin haddaa u sheegno data typeka kaasna waa isticmaali karnaa just saanaa ka dhiganaa hodhowti constantiga waxa weeye marka numberkan haddii aan u dhiibno numberkan isma bedelayo marka haddii aad dhahno okay favorite number is 8 haddii aad dhahno saas khalad weeye waayo haddii aad inta error ayuu ku siinayaa wuxuu ku dhahayaa constant variable cannot be assigned value waayo sababta waxa weeye we already assigned waxaan dhahnay variablekan favorite numberkee waxa weeye 7 kan isma bedelay waayo waxaa ka dhignay constant haddii aan bedelno wuxuuna siinayaa error ayuuna siinayaa waayo ma bedeli karno numberka waayo waxaa dhahnay dart numberkan ma bedelayno marka meel memoryga meel ku save karee hodhowti numberkan programka oo dhan ayuu meel ku haynayaa oo somewhere in the memory ayuu joogayaa mana isbedelayo also waxaa haysanaa maaragtay final ayadoo kalena waxa weeye sidoo kale constant weeye markaad wax u dhiibtid isma bedelaya haddii aad dhahno final for example final string middle name right haddii aad dhahno middle namekey waxa weeye hali hodhowti haddii aad bedelno for example aad ka dhigno middle name is Bashir for example haddii aad ka dhigno isna error ayuuna siinaya waayo wuxuu dhahayaa final variable middle name can only be set once marka haddaa final isticmaalno waa inaad maaragtay hal mar waa inaad u dhiibnaa assignmentiga waa inaad dhahna okay variableka middle name wuxuu haystaa cali mana isbedelayo marka saasna waa samayn kartaa laakiin waa inaad maaragtay inaansan bedelin weeye oo wax kale aad gelisa meesha sidoo kale xataa maaragtay string number haddii aad numberka ku bedeshid num2 haddii aad dhahdo waxa weeye string for example maaragtay let's say user something like that marka integerka kuma bedeli karno string waayo error ayuuna siinayaa haddii aadna wuxuu ku dhahayaa a value of a type string cannot be assigned to a variable type of integer marka integer kuma bedeli karno string marka la soco kaas okay waa sii soconaynaa sidoo kale final haddii aad rabta implicit declaration haddii aad rabta inaad samayso waxaad dhahaysaa final kabacdi waxaad dhahaysaa middle name remember dollar starkan iyo middle namekan isku mid maaha marka dollar starkan new ifantoo magacay isku mid yihiin laakiin haddii aad dollar star ku waxeeno still valid code weeye wax ma ka khaldana laakiin new variable ayuu sameynaya marka haddii aad dhahno Bashir kabacdi hodhowti middle namekan wuxuu haynayaa Bashir mana isbedelayo haddii aan wax kale gelino error ayuuna siinayaa waayo wuxuu ku dhahayaa variableka waxaad samayn kartaa hal mar bes ayaad maaragtay assignment ku sameynay mar labaad ma bedelaysid lastly waxaan haysanaa waxa la dhaho dynamic variable right dynamic x right x is 90 marka dynamic variableka waa runtime variable weeye hadda uma jeedno haddii aad ku dhufno x wuxuu ku dhahayaa x is a dynamic marka haddii aan bedelno x haddaan ka dhigno string unknown
variable right kabacdi waa ku bedeli karnaa saas also x waxaan ka dhigi karnaa false waxaan ku bedelaynaa boolean x waxaan ku bedelaynaa 1.99 all of this code is valid all of it. It's giving me error because assignment-igan ka ilaaway right marka haddii aan print dhahno print x all of it wuxuu sheegayaa fiir so haddii aan dhahno print x here print x here it's giving me error oh name x is already defined okay so let's put dollar let's put dollar here let's put dollar here and then let's put dollar here and let's put dollar here okay haddii aan run dhahno let's also put dollar here as well haddii aan run dhahno this code waatana wuxuu print wuxuu dhahay 90 kabacdi waa bedelaynaa typeka waxaan ka dhiganaa string ayuu soo print karaynayaa also waxaa dhigi kartaa dot runtime haddii aan maaragtay runtime ahno wuxuu sheegayaa typeka at runtime ayuu kuu sheegayaa type dot runtime markaa dhahdo wuxuu sheegayaa typeku yahay at runtime wuxuu ku dhahay kan waa integer kabacdi waan bedelnay waxaan ku bedelnay string kabacdi stringkii waa ka qaadnay waxaan ku bedelnay double right also waxaan dhigi karnaa haddii aan print dhahno inta wuxuu isna print soo dhahayaa bool marka dynamic variable-ka waad bedeli kartaa at runtime even though aan wax ku waxaysa marka dynamic variable-ka waxaa jira use case ayuu leeyahay toorta isticmaali kartid iyo toortaan maaragtay aan rabin inaad isticmaashid marka kaasna waa ka hadlaynaa marka waxaan rabay hadda tuwan inaan ku bilowno variable-ka saad hodhowtii maaragtay u ogaatid differencega iyo xilligaa isticmaali kartid marka korma ayaad isticmaali kartaa final constant for iyo dynamic marka rule of thumb waxa weeye haddii maaragtay muhiimadda waxa waa inaad doorataa constant over final marka haddii aad og tahay variable-ka inuusan isbedelayn uusan maaragtay hal mar ayaad samaynaysaa kabacdi mar labaad isma bedelay waa inaad isticmaashaa constant for example haddii aad rabti maaragtay constant url for example haddii website-kaadu maaragtay for example some example.com for example haddii aad maaragtay url ama api haddaad ka shaqaynaysid waxaa fiican inaad constant isticmaasho because waayo sababta waxa weeye variable-kan isma bedelayo url-kan isma bedelayo waa basic url weeye marka waxaad isticmaali kartaa constant saada hodhowti maaragtay programkaada haddaa mar labaad dhistid ama build ama run dhahdid suusan mar labaad isku uusan maaragtay waqti iyo memory uusan kaa qaadan waayo variable-kan markuu maaragtay samaysid kan variable-kan throughout the program wuxuu meel ayuu ku jirayaa in memory meeshaas ayuu joogayaa ilaa intuu maaragtay programka ka dhammaanayo haddii aan mar labaad rabti inaad dhistidna programka ama run aad dhahdi mar labaad mas dhisay waayo already constantigaas already isma bedelayo oo wuxuu ahaynaya variable-kaas marka constantigaas waxaad isticmaali kartaa haddii uu maaragtay variable-ka uusan isbedelayn ayaad isticmaali kartaa final haddaadan awoodi karin inaad isticmaashid constant markaas isku day inaad isticmaashid final intaa isticmaalaya variable waayo final waxa weeye runtime dynamic variable weeye programka markii oo maaragtay waayo hal mar ayaad initialize dhehaysaa markuu programka waxin markaas soo samaysid ayuu maaragtay mar labaad markaas ayuu variable-ka initialize dhahaya for example haddii aad dhahno for name is more right since magacan uusan isbedelayn we can use constant waayo magacan isma bedelayo kabacdi waxaa dhahaynaa final kabacdi waxaa dhahaynaa name namekan wuxuu noqon karaa name
dot to uppercase, right? waayo anything dot haddaa dot dhahno waayo hata haddii aan dhahno constant haddaan kan ku bedelno constant haddaan ku bedelno programka uma shaqeynayo waayo wuxuu dhahayaa constant variable must be initialized with the constant value marka saan ma isticmaali karno constant ma isticmaali karno waayo variablekan waxaan gelinaynaa meeshan markii aad run dhahno programka run markaa dhahno ayaad maaragtay isticmaali karnaa marka kan waxa weeye good use case waaye inaad isticmaashid final marka final isticmaashid run markaa dhahday programka kabacdi variablekan markuu maaragtay haddii aad dhahno print dollar name markaa print dhahno magacan isma bedelayo for example markaa print dhahno mo ayuu soo qoraya oo capitala hodhowti haddii aad dhahno name kabacdi haddii aad dhahno cali markaas ma shaqeynayo waayo waxaan helaynaa variable name can only be set once marka waxaad isticmaali kartaa final in that case marka final ayaad isticmaalaysaa haddii aad rabtid variablekan inaa wax ama resultiga markaa ka heshid meeshan oo hodhowti magacan ku bedeshid uppercase markaad ku bedeshid haddaa rabtid variablekan inuu final noqdo final ayaad ku bedelaysaa constant ma isticmaalaysa okay so torma ayaad isticmaalaysaa dynamic waxaad isticmaali kartaa haddii aad maaragtay la shaqeynaysid maps iyo json data haddaa isticmaalaysid maps ayaad dynamic isticmaali kartaa for example haddii aad dhahdid haddii aad dhahdid map with the string and then dynamic variable right and hadhowdi aad dhahdid maps right marka kan waxa weeye map waxa weeye oo keyga waa string valuegana dynamic marka wuxuu noqon karaa for example wuxuu noqon karaa name wuxuu noqon karaa string wuxuu haysan karaa integer double values wuxuu haysan karaa double values ayuu haysan karaa boolean marka markaas ayaad isticmaali kartaa dynamic waayo haddii aad maaragtay json data waxaad sabta isticmaalaysid waxaa fiican inaad isticmaasho dynamic saar hodhowti maaragtay data typeka ay u kala duwanaan karaan marka saas ayaad samayn kartaa marka make sure markasta waa inaad doorataa constant haddii constant kuu shaqeyn weyso kabacdi waxaad dooranaysaa final hadduu kuu shaqeyn waayo markaas ayaad waxaad dooranaysaa for keyword ayaad dooranay waayo final haddii uu shaqeyn waayo for ayaad kabacdi haddii oo aad rabti inaad dynamic variable inaad isticmaashidna waxaad isticmaali kartaa maps ama json data haddaad isticmaalaysid ayaad isticmaalay okay I hope you understand marka let me know if there's any comment waxaas haddii haysatid commentii soo geliya I'll try my best to answer your comments